kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeenan xogta shine ee aan kusoo gudbinno wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha Soomaalida iyo xogta caalamka ee degal kasta. Qodobadani waa qaar ka mid ah xogaha dunida ee aan idiin soo gudbin doono. Xiisadii ugu adkayd ayaa mar kale waxaa laga muujinayaa walaac xoog leh oo ka taagan soodinta ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo dalka Kenya. maamulka Mandheera ee dalka Kenya wuxuu shaacan ka qaaday maleeshiyadyo ku sugan xadka dalka Kenya iyo ciidanka amniga ee Soomaaliya oo wada cagajugleyn xoog leh. quwadaha waaweyn ee dunida oo ka mid yihiin boqortooyada Ingiriiska waxa ay saf dheer ugu jiraan danaynta diyaaradaha droniska ah ee dalka Turkiga ee Bayraktar TB2 sida sheegtay jirada The Guardian iyo sida dalalka waaweyni ay u danaynayaan diyaaradahani ee soo shaabaxaysa. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa raaligelin ka bixiyay hadal uu ku taageeray madaxweyne Farmaajo iyo Turkiga oo ku dhawaaqay dayax-gacmeedyada cusub ee sanadkani iyo xogo kale ayaad dhegeysan doontaan. barnaamijkeennan waxaan ku bilaabi doonaa baarlamaanka ismaamulka Mandheera ee dalka Kenya ayaa walaac ka muujiyay waxa ay ugu yeedheen maleeshiya ajnabi ah oo ku sugan deegaankooda iyo ciidanka Soomaaliya ee ku sugan xuduudda labada wadan. war-saxaafadeed ay soo saareen baarlamaanku ayay ku cadeeyeen xaaladda amni xumo midii ugu xumayd oo ay wajahayaan isla markaana dadka deegaanku ay guryahooda ka qaxiyaan suurtagalnimada dagaal ka dhaca xuduudda. in ka badan sidii hore xaaladda hadda waa mid aad u kacsan. qoysas degan guryaha ku dhow xadka ayaa goobo kale u qaxay, kuwa kalena guryahooda ayay ka tageen. shirgudoonka golaha ayaa sidaas u sheegay bayaanka. maleeshiyaadka ay soo bandhigeen baarlamaanka ismaamulka Mandheera ayaa ah maleeshiyaadka ay sheegeen inay taageerayaan Janan oo ku sugan xaafado ka tirsan Mandheera, waxayna wadaan is-urursi waxayna helayaan gawaarida gaashaaman. arrintaas oo walwal ku sii abuuraysa dadka deegaanka sida Xuseen. ciidamada Soomaaliya ee xuduudda jooga ayay ku eedeeyeen inay sameynayaan cagajugleyn ka dhana ciidanka wasiirka amniga Jubbaland Janan ee xuduudda ku sugan. waxaan cabsi ka qabnaa in ciidamadaasi ajnabiga ah ka dhex qarxo dagaal. shacabku waxa ay codsanayaan in wadankooda ay ku laabtaan ayay Xuseen. maleeshiyaadka ajnabiga ah ee ismaamulka ku sugan 11 bilood waxa ay ku kacayaan falal dhaqan xumo ah oo ay ku beegsanayaan haweenka ayay sheegeen. wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa horey beeniyay wararka sheegay in ciidamadiisu ay ku sugan yihiin gudaha Kenya, wuxuuna ku tilmaamay in ay joogaan magaalada Balaxaawe ee gobolka Gedo. dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo gobolka Gedo waxay geysay ciidamo kuwaas oo Jubbaland si awood ah ugala wareegay qaybo ka mid ah gobolkaasi Gedo. tallaabadaas oo maamulka Jubbaland ay ku sifeeyeen jabhad sharci darro iyo xiisad mid abuuraysa gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya. hadal uu sheegay madaxweynaha Jubbaland kadib shirkii ka dhacay magaalada Garowe khudbada uu ka jeediyay waxa uu markii ugu horeysay si weyn ula garnaqsaday dowladda federaalka. wuxuu sheegay in maamulada dhammaanba dowladda federaalka ka tirsan la siiyey in ay ku qabtaan doorashooyinka 2 gobol oo loo qoondeeyay maamul kasta, laakiin wuxuu sheegay in cadaalad darro ay tahay in Jubbaland gobolka Gedo oo ay ahayd gobolka labaad ee la doonayay in doorashadu ay ka dhacaan ay dowladdu la wareegto. markaa wuxuu ugu baaqay madaxweynaha Jubbaland in haddii dowladda federaalka ay iyadu go'aansatay inay la wareegto gobolka Gedo oo doorashadiisa qabanayso, dhammaan maamulada kalena waa inay ka tanaasulaan 1 gobol. sidaa darteed waa inay doorashada ku qabtaan 1 gobol ayuu sheegay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. haddii kale xaq ma u leeyahay in aniga si gaara la bartilmaameedsado. Axmed Madoobe ayaa raaciyay intaa wuxuu ku daray waxaan diyaar u ahay in Soomaaliya darteed aan wax kasta uga tanaasulo. hadalka madaxweynaha Jubbaland oo ahaa kii ugu xiisaha badnaa oo dhinacyo badan taabanaya isla markaana taabanayay waaqiciga jira, waxa uu ugu baaqay in shirarka la isugu imaanayo ee shaha la wada cabayo ee la isla waafaqayo wax kasta kadib marka la kala tagana halkaas looga kala tagayo wixii lagu heshiiyey. Axmed Madoobe arrimaha kale ee xiisaha leh inta uu ku daray waxaa ka mid ah dastuurka Soomaaliya oo u baahan yahay in la dhamaystiro. sida darteeda dastuurka haddii la yiraahdo dowladda federaalka ama maamulada ayaa dhamaystiraya
waxa ay noqonaysaa in koox kasta ay si gaara u sadbursato. sidaa darteed dastuurku waa in u helaa khubaro Soomaaliyeed, laakiin waa inay hogaamiyaan khubaro ka madax bannaan Soomaaliya oo aan u xaglinayn maamul iyo dowlad dhexe midna, ayuu ku daray. wararkeena kale, boqortooyada Ingiriisku waxay doonaysaa inay bilowdo barnaamij cusub ee daroniska hubaysan kadib markii ay darseen guushii diyaaradaha dagaalka ee Bayraktar ay ka heleen dagaalkii dhowaan ka dhacay Nagorno-Karabakh. siday qortay jariirada The Guardian gelinka dambe ay Arbacadii, iyagoo soo xiganaya saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Britain. militariga Britain ayaa la filayaa inay bilaabaan barnaamij cusub oo ay ku adeegsanayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroniska markii ay aragtay Britain dagaalka Azerbaijan muranka ka dhex taagnaa dalka Armenia. adeegsiga teknolojiyadda guushii ay ka gaareen Armenia dagaalka Nagorno-Karabakh. saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Ingiriiska ayaa rumaysan in adeegsiga Azerbaijan ee diyaaradaha raqiiska ah ee Turkiga 6 toddobaad ee dagaalkii dayrta ay muhiim u ahayd jabinta Armenia, ayna ku qasabtay inay kala wareegto Armenia gacan ku haynta dhul ballaaran gobolka Caucasus. iyo waradyada ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Britain oo ay soo xigatay jariirada The Guardian intaa waxay ku dareen in boqortooyada midowday ay doonayso inay soo iibsato diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee raqiiska ah oo qayb ka ah dib u eegista 5 sano ee difaaca oo lagu wado in la soo bandhigo horaanta sanadka 2020. inkastoo ay jiraan digniino ku saabsan halista sii kordhaysa ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dilaaga ah. horaantii bishani, Ben Wallace, xogayaha difaaca ee Britain, wuxuu sheegay in diyaaradaha Turkiga ah ee loo yaqaano Bayraktar TB2 drone ay tusaale u yihiin sida wadamada kale ay xilligani u hogaaminayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. ayuu raaciyay waxay mas'uul ka ahaayeen burburkii boqolaal gawaarida gaashaamana iyo xitaa nidaamyada difaaca hawada, inkastoo ay jireen cadeymo fiidiyoya oo muujinaya in sidoo kale dad badan ay ku dileen dagaalka Nagorno-Karabakh. bartamihii bishii Oktoobar, warbixin ay soo bandhigtay Crash Report taas oo u muuqatay inay muujinayso weeraro diyaaradaha daroniska ee Turkiga Bayraktar TB2 oo bartilmaameedsanayo goobaha difaaca ee Armenia. muuqaalo kale oo ay soo bandhigtay wasaaradda gaashaandhigga ee Azerbaijan bishii Oktoobar waxay muujinayeen in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano TB2 drones ay weerarayeen ciidamada Armenia una adeegsanayeen gantaalo ku xidhan diyaaradaha daroniska ah ee Turkiga oo burburinaya. wargeyska The Guardian ayaa sidoo kale waxa uu taabtay awoodda Bayraktar TB2 drone, isagoo sheegay in mid kasta oo ka mid ah ay ku kacayaan inta u dhaxaysa qiimaha 1 milyan ilaa 2 milyan, halka diyaaradaha kale ee hore ay u iibsadeen militariga Ingiriisku ay ku baxday lacag ka badan 20 milyan oo dollar, taas oo ah in ay ka waxtar badan yihiin kana qiimo hooseeyaan diyaaradaha daroniska ee Turkiga. taas oo keentay in si gaara ay Britain u xiisayso diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano Bayraktar TB2. waxay awoodaan in hawada ay iska fadhiyaan ilaa 24 saacadood, waxayna awoodaan inay burburiyaan awood kasta oo military. sida lagu xusay warbixinta The Guardian, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano Bayraktar TB2 ee daroniska Turkiga ayaa si degdeg ah wax uga bedelaya isku dheelitirka militariga ee gobolka, waxaana si aad ah loogu adeegsaday weerarada ka dhanka ah mucaaradka Kurdiyiinta iyo sidoo kale Liibiya dagaalkii sokeeye ee dalka ka dhacay. xilliga xagaaga ka hor xiisadda colaadeed ee Azerbaijan, waxa ay Turkiga ka soo iibsatay Bayraktar TB2 laba darsin. qiyaas ahaan waxaa si weyn loo rumaysan yahay inay ka howlgalayeen duuliyaal Turki ah. muuqaalada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroniska iyo sidoo kale loogu baahiyey boorarka dijitaalka caasimadda Azerbaijan ee Baku. qiyaastii 5,000 oo askari oo labada dhinaca ayaa la dilay, laakiin falanqeeyaashu waxay qiyaaseen in Armenia ay lumisay 224 taangi marka la barbar dhigo Azerbaijan oo lumisay 36 taangi oo kaliya oo laga burburiyey. isticmaalka Azerbaijan ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa ah mid go'aan hanti siisay, siduu sheegay Professor Michael Keller oo ah shaqsi caan ka ah Royal United Service Institute oo ah falanqeeye militariga ah. dhowr diyaaradood oo nooca loo yaqaano Bayraktar ayaa waxa ay sheegteen inay soo rideen Armenia, iyaga oo sheegay in ay ku soo rideen nidaamyada difaaca ee Ruushka. taas waxay dhanka kale muujisay
in aysan diyaaradaha droniska khasaarahoodu saameyn ku yeelan doonin ciidan kasta oo militariga ah iyada oo sidoo kale ay jireen warbixinno ay qoreen warbaahinta qaar ka mid ah gaar ahaan jariirada Al-Military toddobaadkii la soo dhaafay waxay ku sheegtay in xiriirka ka dhaxeeya Turkiga iyo dalka Ruushku ay qayb ka tahay Ruushka oo dareynaysa xilligani in ay indhaha ku hayso inay hesho qayb ka mid ah diyaaradaha droniska ee dalka Turkiga oo xiiso weyn ay u hayso kadib markii ay aragtay awoodooda dagaalada ay la galeen wakiilada matalaya dalka Turkiga iyo wakiilada matalaya dalka Ruushka isku dhacyada iyo jabka ay u geysteen. sidoo kale Ruushku waxay daneynaysaa in diyaaradaha Bayraktar TB2 ay qayb ka noqoto tiknoolajiyadeeda lagu horumarinayo. si kasta ha noqotee danaynta diyaaradaha Bayraktar TB2 drones ee Turkiga inay hesho ayaa ah xiiso kale oo sii kordhinaya xamaasadda loo qabo diyaaradahan droneska ee hadalaynta ka abuuray dunida militariga. mid ka mid ah khubarada militariga ee dalka Ingiriiska ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Ingiriiska ay sharciyeyn doonaan tiknoolajiyad dhiirigelin doonta isku dhaca muran kasta oo loo adeegsado droneska. agaasimaha ururka loo yaqaano Drones Wars UK ayaa yidhi kooxaha bulshada rayidka ah waxay in muddo ah ay ka digayeen awoodaha waaweyn ee xiisaynaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska sida Britain waxay u badan tahay inay huriyaan dagaal kale oo qadhaadh oo dilaa ah oo u dhaxeeya dawladaha dariska ah. wararkeena kalena wasiirka gaadiidka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka Turkiga Caadil Karaah Ismaaciil Oglo ayaa ku dhawaaqay dalkiisu inuu hawada u dirayo dayax-gacmeedka A5 maalinta Talaadada soo socota. tani waxay ku timid hadallo uu ka sheegay wasiirku Arbacadii oo ku aadan booqashadiisa gobolka Urdu ee waqooyiga Turkiga. wuxuu tilmaamay inuu soo bandhigay dayax-gacmeedka aan soo sheegnay muhiimad weyn dalka Turkiga. wuxuu intaa ku daray inuu soo bandhigayo dayax-gacmeedka xigi doona dalka Turkiga oo uu daahrogi doono madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan waxaana xigaya dayax-gacmeedka 5P oo hawada ay u dirayaan ugu dambeyntii bisha June 2021. wasiirka Turkiga wuxuu sharaxay shaqada socota ee dayax-gacmeedka kale ee loo yaqaano 6-5 taas oo muujinaysa xiiso kale oo la qorsheeyay in la soo saaro ilaa iyo ka hor 2022. wuxuu carabka ku adkeeyay in Turkigu uu kor u qaadi doono awoodiisa dhanka cirka ah. taasna waxay uga mahad celinaysaa shirkadaha qaybta ka qaaday dayax-gacmeedyada maxalliga laga bilaabo A5 5P iyo sidoo kale ilaa 6A. Turkigu wuxuu dayax-gacmeedkiisii ugu horeeyay bilaabay 10 Agoosto 1994. dayax-gacmeedka A5 ayaa ah dayax-gacmeedka jiilka shanaad. xogeenan waxaan ku soo gabagabayn doonaa qaybtan ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo ka qayb galay dood ka socotay shirka magaalada Garowe ayaa raaligelin ka bixiyay hadalkii uu hore u sheegay ee uu ku taageeray dib u doorashada madaxweyne Farmaajo. hadalkaas oo ahaa madaxweyne Farmaajo in uu wareegga koobaad ee doorashada ku soo bixi doono sida dowlad goboleedyada Hirshabelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed ay ugu soo baxeen madaxweynayaasha taageersan dowladda. waxaan rabaa inaan raaligelin iyo hal aan ka bixiyo hadal aan hore u iri arrinta wareegga koobaad. raaligelin musharaxiinow habiqina xaal baan ka bixinayaa wareegga koobaad garoonkana uu noo furan yahay ee aan u diyaar garowno ayuu sheegay Mahdi Maxamed Guuleed. hadalka raaligelinta uu bixiyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa markii uu sheegay waxaa ka falceliyay qaar ka mid ah midowga musharaxiinta iyo xubnaha mucaaradka iyagoo sheegay in Mahdi Guuleed uu si hordhaca ugu sheegayo in madaxweyne Farmaajo uu boobayo doorashada. xogeena qaybta intaan ku soo gabagabayn doonaa qaybaha kale intaan soo gudbin doono isma dhaafno